kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya telefishanka Universal waxaanu joognaa magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masaarida barnaamijkan waxa marti noogu ah Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweyne ka soo noqday dalka Soomaaliya dawladii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay magaalada Carta ee wadanka Jamhuuriyadda Djibouti sanadkii 2000 isagoo xilkaasi hayay ilaa intii laga gaaray sanadkii 2004 haddii aan dib ugu yara noqdo taariikhda Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa xilal kala duwan oo fara badan uu ka soo qabtay dawladii militariga ahayd iyo tii rayidka ahayd ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan shahaadadiisii hore waxa uu ku sameeyay magaalada Moscow jaamacadda ku taal la yiraahdo Moscow State University isagoo bartay maadada Natural Scienceska shahaadadiisii xigtay masterayda waxa uu ku sameeyay maadada biologyga isagoo ka sameeyay jaamacadda Moscow State University intii u dhaxaysay sanadadii 1964 iyo 65 xilkii ugu horeeyay wasiirnimo Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu qabtay sanadku markuu ahaa 1973 isagoo markaasi noqday wasiirkii warshadaha wasaaradda kala duwan ayuu wasiir ka soo noqday intii dawladii militariga ahayd uu kamid ahaa waxaana kamid ahaa isagoo noqday wasiirkii warfaafinta marna waxa uu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaare ku xigeen Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan kusoo dhawow telefishanka Universal waatay magaalada Qaahira muddo inta lag baad imka deganay sanadiyaan jooga hadda intii dagaalkii ahliga ahaa dhacay waan imid baa joogay markaan muddo joogaan haddana dalkii ku noqday dabadeedna waa tii dib u heshiisiin ayaan bilownay magaalada Xamar dib u heshiisiintii waxaan wadnay aniga rag kale ilaahay waa nagu guuleeyay dagaalkii ka socday ayaa digay markaasaan Carta aadnay Carta waa tii nala ku soo doortay markii ay soo doortay muddo markii aan xilkii hayay ayaan markii Cabdullaahi Yuusuf la doortay ayaan markay waata ilaa 2004 marka magaalada Qaahira rasmiyan u degantay adigu 2005 halkan deganay dib ma ugu noqotay intii ka dambeysay wadankii ma dib ugu noqon wadankii waa la socdaa habeenii maalinba idaacadahan waa kala hadla telefishinka oo ka fiirsada akhbaartiisana rag jooga xagga ayaa warka iga siiyay waana xiriir baan la leeyahay ayba badan oo bulshada ka mid laakiin maxaad ugu noqon weyday waxaan ugu noqon waayay xaaladda taagan daraadeed waa mid horta in loo arkin in la doonayo jagadoon qofku inuu yahay Soomaalidu wax kale ma taqaan waxay taqaanaa qofka kale wuxuu doonayaa jago waxaan islahaa balhays doorteen ayaga hal daay yeeyan imaanin dhibaato hebel baa wax doonaya waata ku xigtay ee haddii qaska ka dhacay dhibaatada ka dhacaysa ayaan aad iyo aad uga xumaa dadku inuu dalku dego oo heshiiyo oo sidii aanu kula talinay ama ku dhawaaqaynay wax lagu qaato ayaan rabnay waana sheegnay waa imaanaynaa baan ku niri madaxweynahan ka horreeyay intuu joogay waa Sheekh Shariif Sheekh Shariif halkaanu mar noogu yimid waa wada hadlo waxaan ku niri dalkii waa tegaynaa laakiin rabahaas muxuu yahay dalkii dagaal baa ka dhacay dagaal sokeeye oo kii ugu foosha xumaa baa dhacay waa lagu kala qaxay ummadii wax dhintay wax cararay wax gobolladii kala aaday wax dibadda aaday noqdeen wax badda ku dhintay dagaalkaas sidii uu dhacay iyo fidnadaas xoogaa dib u heshiisiin oo annagu aan banaadir iyo dhulkaas ku dhug ka samayn ha joogtay weli wax inta Soomaali isugu yeeray dadkii madaxdii dhaqanka aqoon-yahankeeda madaxdiisii siyaasiyiinta madaxdeedii haweenka madaxdoodii weli wax inta isugu yeeray wixii dhacay lagaga wada hadlay dabadeedna inta laga heshiiyay ilaahay markaas loo toobad keenay ma dhicin baan ku niri hala sameeyo sida hala sameeyo waayahay waa samayn doonaa haddii soo samayn waa kii meesha ka tegey qolooyinkaana waa kula talinay welina ma ayaan arrimahan dambe waa noo iman doonaa laakiin haddaan su-aalkaasii weydiiyo tanaad tiri waxaa laga yaabaa haddaad wadankii ku noqoto in lagu arko inaad xil doonayso jagadii wadanka ugu sarreysay oo madaxweynaha ayaad soo qabatay marka waxa kale aad dooni karaysay muxuu noqon karaa
taas laftigeeda ayaa loo arkayaa inaad madaxweynaha markaas joogo laakiin taasi ma kugu jirta adiga tartanku iguma jirto waa tahay si ayan buu dhicin ayaan anigu inaan halka kala hadlo mooye inaan tagoo la yidhaaho hebel buu rabaa hadda markii xilku ka dhammaado ama intuusan ka dhammaan sida hadda kuwa mooshingeeye laleeyahay inuu muxuu ahaaye isagu meeshii soo fadhiistuu rabo mudane cabdiqaasin sanadkii 1960 ayaad waxbarashadaada jaamacadda u tagtay dalka ruushka nin mudakara oo wax kala garanayaad ahayd waana markii xorriyadda uun la qaatay beriga marna ma kugu soo dhacday in Soomaaliya san noqon doonto 50 sanadood kadib sida runta ma aanan filayn inay sida tan noqon doonto طبعا markii xorriyadda la qaatay weli haddii waxaa lagu jiray waa la cusbaa annagu marna isma aanaan lahayn sida tanaa dagaal ahliyo inta u dhaco oo dadku isu baabi'iyo ayaa ummaddu noqonaysaa haddana waxay ku jiraysaa muddo 20 iyo dhowr sano marna isma aanaan sida aad la socoto intii xilalka dawladihii kala dambeeyay tii militariga ahayd ba ha u badnaatee aad ku jirtay ilaa waqtigan xaadirka wadamo fara badan oo Afrika ah birta la iska aslay dagaalo sokeeye ka dhaceen la isku baaba'ay 94 Rwanda kale 1 milyan baa la iska dilay haddana imika Rwanda waxay ka mid tahay wadamada ugu horumarsan dhinac walba qaaradda Afrika maxaa ugu canbay kula tahay Soomaaliya cilinkeeda la saari waayo waxa ugu wacan waxa ugu weyn oo saan u malaynayo waxa weeye qabyaaladda waxa weeye diintiyo laga tagay sidii rabay aan loo haysan iyo qabyaaladdu markii qofku uu qabiilka u qaato inuu diin yahay oo kale ilaahay xaggiisna ka dheeraado ma aha arrintu salaad ilaahay xalkeeda og yahay tukanaya iyo xoogaa waa soomaya islaamnimadii la rabay markii laga fogaado qabiilna la galo waxay noqonaysaa ciqaab inay kugu dhacdo Soomaaliya ciqaab baa ku dhacday ilaahay xaggiisana kaga dhacday dambiye badan baanan galay diinta iyo quraankana dambaan ka galay waa xusuusan tahay inkastoo waagii dambe laga noqday anuguna raggii ku khudbeeyay aan ahaa berigaas laga noqonayay in aan ilaahay ugu tabarrucayn ugu sujuudayn ka noqoshada aan ka noqonay khudbo ku iri baarlamaankii berigaas waa tii aynu arrintii diinta wax yeelaysay waa tii lagu hadlay berigii maxamed siyaad barre dhibaatadeeda ilahay waa 74 markii wadaadadana la leynayay miya waa tii la leynayay aad baa ciqaab xumo ugu dhacday wadaadadii waa tii la laayay berigaas wadaadada la leynayo maxamed siyaad barre waa naxariistaa waa tegey wuxuu ku maqnaa baraawe haddaan qaldaneyn ayuu ku maqnaa waa ka yimi safar buu ka yimi aniguna madaxtooyadan tegey iyo rag kaloo ismaaciil cali bukari ay ka mid yihiin axmed salaan rafle iyo rag saasa dhowr nin annagoo ahaan sunni qisadii baa loo sheegay taliyihii booliiska ayaa u sheegay oo yidhi niman saasaa maanta masaajidkii ka qaylihayay oo saas sameeyey axmed saleebaano markaas nala joogay yuu yidhi shaqadaada qabso axmed saleebaan yaana dhihine maxkamaddii dowladda maxkamaddii badbaadada miya geelle ayaa jeeda nala joogay shaqadaada qabso way muxuu uga jeeday markaa shaqadaada qabso hadee markaas annagu ma fahmayno laakiin macnaheedu waxa weeye xukun saar haya waxaan ku iri madaxweyne niman maanta waxba ahayn yaanaan taallo u dhisay dadkaan inta layno maanta waa qof wadaad caadi oo khudbaynayay iyo xataa kuwa aan wadaadda ahayn oo iska laga soo qabtay meesha yaanaan taallo u dhisay macnaheedu yayay noqonin dhibaato weyn yayay noo keenin على اتحاد يبكاس dadka la laayay ciqaabteedii waa lagu dhacday dagaalkii ahliga ahaa ee ka dambeeyay isaga dawladdii hataa in dambiyada looga soo daatay dadkii xamar deganaa fidnadii ay dhigeen ciqaabteedii waa lagu dhacday islayntii ayagu islaayeen ebers ka dhigeen ciqaabteedii waa lagu dhacday
soomaalidii meel walba ka timid oo waqooyi ka timid oo bari ka timid oo koonfur ka timid layntii la laayay oo ilmihii iyo carruurtii masaajidyada qaar lagu kufsaday lagu laayay ciqaabteedii waan haysataa waxaan ugu dhacay marka ma sahlana mana yara way waxyaabaha aad sheegaysa waqtiyo kala duwan bay dhaceen taad ugu horreysiisayna waa tii xukunkii maxamed siyaad barre iyo markii wadaadada la laayay eedda xooggeeda yaa leh ma idinkaa lahaa dowladdii militariga haddaad tihiin mise waxaa lahaa qolyahan idinka dambeeyey ee aad sheegtay inay cagta mariyeen dhulkii eedda waa la wada lahaa dowladdu marbayaan militari ahayna mar dambe waxay iska ay shiil camal oo baarlamaan iyo waxbaa la dhisay saa la socoto warigii hore baa golaha sare kacaanka keliyu jiray waa tii laga baxay markii dambe dowladdu way lahayd maliisheeday lahayd waxaa iyaduna dhibkeeda lahayd dagaalkii 7/7 la galay dhibkiisuu yeeshay oo lagu soo baaba'ay oo dad badan ku baaba'ay lagana soo noqday dowladihii waaweynaana ay labaduba laga soo horjeesteen dhibkeeday lahayd haddii dowladduna dhibkeeday lahayd dadka niman qabqablayaal dagaala oo gadaal laga riixayo oo la maalgeliyo oo dowlado ajnabi oonan haddee dowlad heble iyo dowlad heble lahayn ay maalgeliyaanna nimanka fidnada ka dambeeya xooggeeda ayay ahaayeen hadday tahay tii rididii kacaanka iyo dagaalada tan socda intaba dagaaladana iyagaa waday waa la socotaa qaarna waa dhintay qaarna hadda waa sii dhiman doctor cabdiqaasim waxaad soo qaaday dagaalkii 77-kii dad fara badan oo Soomaaliya iyo ajnabiba leh oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxay tilmaamaan in dagaalkaasi ahaa bilowgii burburka Soomaaliya xog fara badan baad arrintaa ka haysaa sidaan qiyaasayo dagaalka horta ma sidii idaacadaha nooga sheegi jirteen ayaa loo galay oo Soomaali galbeed la xoreeyo mise sida dadka qaar ay tilmaamaan ciidankii Soomaaliya quwadiisa aad u xoogeysatay oo waxa la doonayay in iyaga qudhooda la jabiyo ma ciidan la jabin meeyay waxa loo galay xaqiiqaduna ay ahayd Soomaali oo dhan qabtay maxamed siyaad ilaa qofka ugu dambeeyaaba in laga xoreeyo gumaysigii xabashida in laga xoreeyo Soomaali galbeed ayay ahayd saasaa loo galay saasaa loogu baaba'ay ma dhici karin wax kaloo taakadiyo ummadoo dhan waa isku raacsan laakiin dooda hore ma u maqashay kale odhanaysa ciidankiiba aad u xoog weynaaday ka mid noqday ciidamada Afrika ugu quwadda roon dadna iyagiina waa in meel loogu jiheeyaa ma doodaas waa iska arrin magiciisiyo socota sababtoo ah ciidanku ninka kale ragga ciidanka ayaa xukumay dalka hadday doonaanna ciidanku inta doonaanba iyaga laftigooda hadday markaa rabaan waa bedeli kareen mushkilad kuma aha oo suurtagal bay noqonaysa inay bedelaan ciidanku hadday kasoo horjeed ciidanku hadduu isku waafaqo waaba damceen war waatay damceeno raggii waa tii lagu toogtay adabayda saraakiisha ah hay damceen inay khaarijiyaan markaana iyagii la khaarijiyey haddii saas oo kale dooni karayeen hadday doonaan oo dabadeedna waa qabsan kareen waana ka qaadi kareen haddii ciidanku uusan raalli ka ahayn laakiin raalli ka ahaayeen baan filayaa maamulkaas markaas jiray dagaalkana kulli waxaa loogu wada jiray in la soo qaado idinku ka dawlad ahaan ma isu arkayseen markii Soomaalida la soo jabiyay inaad guul daraysateen oo siyaasaddiina ay guul daraysatay loona baahan yahay in wadanka cid kale ay u jihayso waa arkaynay in siyaasaddii inay guul daraysatay laakiin guul darradaas waxay ahayd mid quwadihii waaweynaa dalka waa in la xoreeyay ku dhawaatay Soomaali galbeed haddii ayna soo faragashan Sooviyetka iyo dawladaha waaweyn oo raacsan oo raalli ka ah Mareykanka hadday soo faragelin oo Kuuba ciidamadeedii la keenin oo ay meesha ka dagaalamin oo Yemen ciidamadeedii ka dagaalamin oo hadday intaas oo ciidan meesha ka dagaalamin de waa tii ilaa la tagay laakiin markii dambe la soo jabiyay haddii su'aasheedii kuugu celiyo Soomaalida laga adkaaday sidii la doonaba ha looga adkaado ma isu arkayseen in siyaasadihiinii ay noqdeen qaar guul daraysto loo baahan yahay in markaa cid kale u banaysaan xukunka طبعا waa la arkayay inay guul daraystay waana muuqatay waana dhici lahayd in saan isleeyahay wuxuun la sameeyo ha yeeshee haddii hoggaanka sare ugu sarreeyo militariga oo ragga militariguna sidaas uma sahlana hawshooda balse waa muuqatay ha yeeshee waqti inay qaadato mooye haddii markiiba
markiiba haddii uu maxamed siyaad barre iscasilo dagaalka ahliga ah markiiba bilaaban lahaa ciidanka dhexdiisa iyo fidnaad ka bilaaban lahay doctor cabdiqaasin duruufo fara badan baa ka dambeeyey marxalado kala duwan oo fara badan baa waddanku soo maray dagaalkii sokeeye markii uu bilaabmay oo la odhan karo marba taaguu lahaaba wuxuu aada u xoogeystay siddeetamaadkii markaa ma istusteen in dawo aan dagaal ahayn soomaalidu u baahan tahay waa la istusay waana laga wada hadlay hoos baana looga wada hadli jiray dawo aan dagaal ahayn in loo baahan yaha la istusay in nooc dimuqraadiyad ah la keeno ha yeeshee nimanka militariga ah oo meesha iyagu ugu awoodda badnaa ayaa aan ku qanacsanayn badanaaba arrintaa ilaa markii dambe dhexdooda iyaga laftooda intay isqabtaan qaarkood la xirxiray markaa raggiinnii madaxda sare dowladda ka ahaa laakiin militariga aan ka mid ahayn haddiiba aa u aragteen saaad sheegayso in talooyinkiinnii aan la qaadanayno militariga arrintii isku koobeen idinku maxaa meesha u joogteen talooyinka inaan la qaadanayn boqolkiiba boqol ma ahayne waxay ahayd hadii marka hore in waxa la isku raaco oo wuxuun la isku raaco meeshan waxaan u joognay dalkaan u adeegaynay waad ogtahay dowlad ama musuqmaasuq ka jiro ama magaciisi badan ma ayan ahayn dalkaa loo adeegay ummadda iyada ayaanu u shaqaynaynay balse isbeddel inuu yimaadaan rabin ha yeeshee isbeddelku degdeg kuma imaan karin isbeddelku degdeg kuma imaan karin waktigu qaadanayo waktigana ilaah baa ogaa hadda xag allana sida tan baa qoray laakiin doctor cabdiqaasin nin aqoon-yahana baa tahay nin dunida kale iyo sida loo macaamilo la socday baad ahayd meesha waxa lagu hayo haddaanad raalli ka ahayn soo la iskagama tago meesha waxa lagu hayo waxna raallaa laga ahaa oo ummadda sidii loogu adeegahay waxay ahayd si aan weli soomaaliya soo maray dowladihii soomaaliya ka dhashay dowladdii kacaanka wixii ka horreeyey waxaan soo marin baa dowladda kacaanku qabatay wax la og yahay wey beerihii bay ka qabatay xoolihii bay ka qabatay baddii bay ka qabatay dhismihii bay ka qabatay awooddii qaranka ayay ka qabatay dowladaha africa ugu sarreeya ayaanu noqon laakiin sanadadii hore un bay ahayd soo maa ama ilaa 70 ilaa 80 saasay ku socotay ilaa dagaalka laga galo sidaas daraaddeed ma ayan ahaan arrintu meel u kala tegay dagaalkaas garidiisii oo kulli la isku raacsanaa in la galo oo la xoreeyo goboladaas ayaa keenay dhibaatadaas sidii looga bixi lahaana ma hawl yaraanin haddana niman qabqablayaal dagaalaha soo baxay qabqablayaashii dagaalka ayaa ummaddii qabiil ahaan ku kiciyey qabiilkii markay ku kiciyeenna derbigaa laga soo daato waxay noqotay in dalkii burburo dowladdii maxamed siyaad barraa dhacday 1991kii intii ka dambeysay waxyaabihii dhacayay waa lala wada socday anu nimaadna shirkii carta ee adiga lagugu soo doortay waraysigan qaybtii ugu horreysay waxaad ku sheegtay in weli hogaamiyayaasha soomaalida aanay u suurtagelin waa sida aad tilmaantay in aqoon-yahanadii iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo dumarkii iyo culimaadudiinkii iyo meel inta la isugu keeno dabadeedna la yidhaahdo arrintii soomaaliya waa tane dee wax ka dhaha taasi miyaanay dhicin shirka adiga lagugu doortay 3,000 oo qof dowladda jabuuti aanay isu keenin 3,000 waa dhacday dowladda kun waa la isu keenay 3,000 ka horna annagaaba ka shaqaynay dadkii xamar markaas deganaa iyo gobollada u dhow oo dhan annagaaba heshiisiintoodii ka shaqaynay waxaan ka bilownay dadkii reer xamarka ahaa oo aan ayagu dagaal iyo fidnada aqoon oo wax la dilo iyo wax la qaxiyo wax la kufsado laga dhigay in inta loo yeero madaxdii dadkii markaas xamar ku soo harayna caasimadda dadkii ku soo harayna loo yeero boqoradoodii iyo imaamku ugu sarreeyay imaamkii hadda dhintay in la yidhaaho ka tacsiyeeya wixii aad geysateen dadkaana u hoyda hana la siiyo wixii markaas loo heli karana la siiyo halkaasaan ka bilowna inay sii socotaan rabin marka dadkii waqooyiga lagu laayay reer waqooyiga ahaayoo la laayay dadkii gobollada dhexe ahaayoo la laayay dadkii gobollada
markaasaad tilmaamayso adigoo iga raalli haddaan kaa dhex galo waxaad doonayseen sida dowladaha qaar afrikaana ka dhacday in horta laysu qoro wixii dhacay oo layska xaal siiyo sidii soomaalida taariikhdeeda iyo dhaqankeedu ahaan jiray geed inta la fadhiisto laysu qoro maxaa dhacay la yidhaah intii la dilay intii la dhacay guryihii la kala haystay xoolintadii la kala qaaday markii wax walba laysu sheego in markaas sidii caadadu ahaan jirtay ilaahay loo soo noqdo lays cafiyo hantidii la kala haysto oo ma guurta ah laysu celiyo saasaan rabay deedna maxaa ku dhacay hawshaa aa gudaha ka wadeen hawshaas markii reer xamar arrinteeda aan sidaa ku dhammaynay ilaa xaddan ma ay saa ku dhammaatay dhinacyadii kalena aan rabnay inaan wadno waa socon weyday oo qalalaasaa gobolladii dadkii ilin gobollada looga yeeri lahaa qalalaasa xagga waqooyi xagga qalalaasihii baa batay sidii loo sugahayeyna haddana waxay noqotay in dowladdii hadda waqtigeediiba dhammaaday oo aniga kule markaas madaxweynihii igu xigay ayaan la hadlay oo ku iri waa arrintaa waxbaan qayb baan ka qaadanayaa weyn adigu horta abaabul oo samey laakiin hawsha aa gudaha ka wadeen miyaanay jirin in hogaamiyaashii kooxoo berigaa xoog lahaa aanay raalli ka ahayn sida ay iyagu u arkayeen maadaama aa halis ku tihiin xukunkooda nimankaas iyaga ah waxyaalihii aan ka shaqaynay ka mid ahay laftigooda in lala xiriiro dhammaantood waa la xiriiraan markii aan soo noqdo carta ka soo noqday intaanan carta ka imaanna waa la xiriiray markaan carta ka soo noqdana qaarkood xataa dowladdaan ku daray suudaa ka mid ah waa dhammaynay ilaa xaddan ma waa joogsatay fidnadoodii waa joogsatay dadkiina waa nacay waana laga baxay marka kuwaas iyaga halkaasay arrintu ahayd laakiin waxaan rabnay fidnadii dadka loo geystay inta laga wada hadlo muddo ay qaadato waxgaradkii laysu keeno dowladdu ay kharashka deeri karto bixiso haddii kalena geed hoosta inta la fadhiisto la socdo bilo hadday socoto aakhirka in la gaaro wixii la kala qaatay iyo wixii la kala dilay inta laysu celiyo sidii soomaalidu ahaan jirtay laga heshiiyo dabadeedna ilaahay in loo soo noqdo mudane cabdiqaasin shirka carta ee lagugu soo doortay dhowr kun oo qof baa ka qayb galay muddo aada u dheer buu socday howl badan ayaa dowladda jabuuti iyo beesha caalamka iyo soomaalida qudheedaba ilaa xad ka gashay rajo fara badan ayaa laga qabay dowladdaadii maxaa dhacay dee waxaa dhacay shirka carta waa saad u tiri dowladda jabuuti shaqay ka qabatay annagu gudahan ka soo shaqeyno xamar baa ugu daraayo waa tii aan ku yiri waa soo heshiisinay dadkii carta markii laga tegey dal dowlad la-aan iyo hanti la-aan ahaa la tegey hantidu ma aha tii shacbiga ka hadli maayee dowlad aan jirin oo baaba'day dhismadeeduna sanadiyay qaadataa si loo dhiso marka oo loo soo celiyey si warlooradii laysaga dhiciyey si ummaddii kala tagtay loo soo celiyaa waqtay qaadata waqtigaasuna wuxuu ahaa mid nabad jirtay ilaa xaddin maa dagaalkii ahliga ahaana dhammaaday ha yeeshee dhismihii uusan socon karin sababtoo ah cid dhaqaale ku siinaysa ma jirin dowladaha adduunka ugu waaweynaa waxay ahayd dowladihii gacanta cagta nagu hayay bay ahaayeen labada dowladood dunida ugu weyn haday ruushta ay maraykan tahay dowladihii kale dowladahan ama muslimka ama carabta una wax weyn ma ayan qabanin walow ayan gacanta laaban laakiin haddana si fiican wax loo qaban mayo marka waxaa jiray dhaqaale xumo waxaa ka sii daray amniga oo aan weli markaasaan ciidamadii bilowna inaan soo celino booliiska markaasaan waxaan bilownay militariga laftigiisa magac ahaan inaan usoo celino halkaasay marka hawshu ka socotay laakiin sida dad fara badan ay qabaan rajadii laydinku soo dhaweeyey maalintii muqdisho ku laabanayseen waan idinla socday soo dhaweyntu xadidhaaf bay ahayd ilaa baydhaba waa tee aan idiin raacay dadku rajo fara badan bay qabeen dad fara badan baa waxay qabaan in arrintu xaggiina fadhiid ka noqotay oo ay dowladdii dhinacnaba u socon weyday maxaad ugu jawaabaysaa dadka saa qaba waxaan ugu jawaabayaa dowladdii fadhiid ma noqonine waxay noqotay dowlad aan lahayn sidaan sheegay ciidan daafaca safaarado dibadda ay ku leedahay oo shaqaynaya dhaqaale haba yaraatee shilinna allaha ka dhiga canshuur la qaadaa ma jirto dhaqaale la hayaana ma jiro saas iyadoo ah ayaa haddana
للسعودي أو أي تمد إن أفر سنة أنت الله السعودي قرمدا مدوبين للطو قرنكي علنكي للسعودي وين هي سيان علنك يجي ولا قص عاري الدونك ولا قاعد قرمدا مدوبين لا قص عاري كرسي يجي إن سوء عشان جامعة عرفت إن سوء عشان إن سوء عشان الدونك هي ده هو وين الدونك وقدر إن سوء علم وحياله هو وين بعيد جامعة قرمدا مدوبين إنتان تبو أن كخب بيه شيء حالة جرده هي شيء سيدي شيء هي دل باباي وسوى باباي ونعيد الحين ونقال الحين ونهي الدولة جيرين أيوها كاسنا وقت قاطع سببتها استعمال كمركي نكبحنا إنك استوى هي جيرين نقالنا وحنون جيرين هذا وقت قاطع سيل وصل موضوع الدولة دي أيوه وقارته هيركي هاي لو سنة لكن ساعات كور هايسو dad fara badan waxay qabaan in isla markiiba dawladdaadii ay xaqii dacaayad kaga badiyeen nimankan qabqablayaasha dagaalka aad ku tilmaamaysay oo hogaamiyaashii kooxaha markaa jiray ahaa khaasatan kuwii muqdisho joogay oo dawladdiinii ilaa xad ama dawladdaadii lagu tilmaamay in ay tahay dawlad xaq jira oo dabadeedna albaabo fara badan oo kuwan dawladaha waaweyn sida awgeed ay idinka soo xidhmaan taasi ma jirtay waxbaa ka jiray waxyaalaha waxayna ahayd ay warloorad isticmaalayeen warloorada nimanka kale leeyahay qabqablayaasha dagaalka dawladaha waaweyn sirdoonkooda qaar isticmaalayeen oo ay u shaqeynayeen oo kharash gelin jiray sirdoonkaas nimankaas uu kharash geliyaa dacaayad baa loo sameeyay wax jiray ah waa la socday dagaalkaasaan ugu socday dhinaca kale sirdoonka nimanka kan la shaqeynaya hadda dawladdiina waa ka soo horjeed mar hadduu ku ana dawladaha waaweyn baan ka hadlay sirdoon dawlad yar ma ahayn iyo dawladda cidna sirdoonkii mar hadduu ka soo horjeedo dawladdu weyn ay ka soo horjeedo aduguna aad burburtay laakiin eedda la idin soo jeedinayay ee ahayd in ahaydeen niman isurursaday oo xaq jira maxaa ka jiray ogaanta haba yaraatay wax ka jira ma jirin waxay ahayd sida kaliya oo lagu kaga fogeyn karo wadamada ama galbeedka ha noqdeen ee Mareykanku u weyn yahay ama xataa Carabta ha noqdeen meelaha kaga fogeyn karo ayaa waxa sidii taaho aynu maanta nimanka ka shabaab sheeganayeen ama muxuu ahay meelisna ayaa la dhigi waxa jiraysay iida inaan ka qayb galo dadka tukanayo oo intaan qamiiskayga qaato oo ka qayb galo oo ilaahay muxuu ahay oo inta soo sawiraan yiraahaan waa ka iidana muxuu ahay waxay ka mid tahay xukuumadda islaamka ka mid islaam baan waana ahay ilaahayna waa ka baqayn laakiin xaq jirnimo shaqadayadana ma ahayn mana aanaan ogeyn howlna kuma aanaan lahayn markaasna waxaa jiray إصلاح لمن اللي يراجع حرير عن لأنه مجرين قالوا إن وحيابها كلاسات كور هيسو مدن عبد القاسم لو تريو إن دولة دادو أي أدقاق ويدي وحكم ذها إذن كون مركبة دولة هي إيجاد خاصة هذا في كل في إثيوبيا يكيني أو كلا أو أرنت الصومالي ده مدة يجوسو ودي in markiiba ay iska barbariseen oo xaggan jaamacadda Carabta ay u soo baydeen iyagina arrintii Soomaalida ay u arkeen inaanay waxba ku lahayn oo dabadeedna iyaga ku dhowdo ay ka mid noqdeen xoogagii ka soo horjeeday Itoobiya hadii la yiraahdo yani malazana ragga ka soo horjeedo walow aan tagay ardsabo aanu shirkii Afrika ka qayb galay oo halkaas hees caruurtu ay heesaysay keeneegal daran ay ku heesiyeen haddana waa naga soo horjeeday dawladahan qarbiga aan sheegayo weyn iyagu waa ma ay doonayeen nimanka daacadda laga faafinayo waa xaq jir ayayna ahaay xiriir marka saasa kuwaas ayaga lama aanan lahayn dawladahan kale ee Afrika haday Kenya tahay iyo haday dhinacyadan kale tahay iyaga wax dhibaato laakiin ma jirtay in markiiba ay soo badisaan xaggan jaamacadda Carabta oo iyagu ay u arkeen in arrintii Soomaalida aan laga talagelinaynin oo dabadeedna cadaawada ay halkaadii kala bilaabeen jaamacadda Carabta hadii xidin kamida Carabta ayaanu nahay waana run inaanu shirarkii hadda jaamacadda Carabta aan ka qayb galayno oo waan ka qayb galshay
qayrada maahan aan ka dhacay masarka tan ka dhacay shirarka carabtaan ka qayb galay dabcan shirarka carabta waa ka qayb gelaynay carabta intaa waa u qaylinaynay waa u qayla dhaaminayna waxaan lahayn war gacan na siiya khaasatan kuwa khaliijka waa jirtaa inaanu hadee ka mid baanu ahayn waa xaggaas u bandaydeen soo maaha haddaan kugu celiyo hadee waaba ka mid baabaan nahay ma inaan u badnayn seebaanaan ugu badnayn haatanba sow ma aha sow kursi ka mida kuraasta midowga afrikaba sidoo kale iyo igaad soomaaliya kamay mid ahayn afrika markii la yiraahdo waa gaar laakiin jaamacadda carabtuna ayana waa gaar labadaba ka mid baan ahay midowga afrikana qayb baanu ka qaadanay hadda midowga afrika wax badan aan kuu qabanahay ma jirin laakiin carabtu hadday rabto khaasatan nimanka khaliijka dad wax qaban karaan wadamada gobolku miyaanay iyagu sida aan sheegay marba kaalin ay ku lahaayeenba aad ugula jirin gacmaha arrimaha Soomaaliya khaasatan Ethiopia gacanta si weyn bay ugula jireen kaligoodna kulama jirin waliba iyaga iyo saaxiibadood dalka galbeedka saaxiibada la ayay ahaayeen labaduba gacanta ku dhibaatada kale loo tiriyo in waxyaabaha keenay in dawladdaadii ay socon weydo waxa ka mid ahaa dhibaato dawlado fara badan oo Soomaalida ah la soo dirista oo aad musuqmaasuqa oo waxa la sheegayay oo lidinku eedeynayay in kaalmo haba yaraatee sidaad sheegtay dhaqaalo fara badan oo wadamada khaliijka ka hesheen meel ay martay inaan la haynin wax ka jira ma jiraan arrinta wadamada khaliijka waxaa ballan qaadeen shilin kama ay ballan qaadeen waxbaba waa la ogyahay wax ay ka bixiyeen xoolihii ay ballan qaadeen ballan qaad waxay sameeyeen haatan waxaan u maleeynaa saas oo kalaaba kuwa Yurub sameeya hadda dawladda jirtaba inta loo ballan qaado waa garanaysaa malaayiinta saas wax loo ballan qaaday shirkan tagna waxba la ballan qaaday wixii la ballan qaadan waxba laga bixin waxay dhacday inaan ciidamada waxaan siin ciidamada xataa aan qori kari weyn ay ilaa xadkaas ay gaareen hadda marka haddii ka faramadnaydeen dawladihii waaweynaa ee qarbiga ama reer galbeedka iyo kuwii khaliijka 4 sanadood maxaa wax ku wadeen waxaan wax ku wadnay ilaahay awoodiisa iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo inta isxilqaamay waxa laale wixii amaaday xafiisyadii taama wixii la bixin karay kharash xogaayada yarka kharashka iyo culays aad is saareen waa jiray halkaas uu ka soo markii dambe waxa dhacday in xitaa dawladdii Djibouti oo kaalin aad u weyn sidii aynu la wada soconay ku lahayd shirkii carta qabashadiisii iyo waxyaabihii ka soo baxayba iyaga qudhoodina ay idinka niyad jabaan oo ay u arkeen in dawladdii ay tahay mid aan soconaynin markaa taasi ma waxay tii markii dambe keentay in xilkaad iska wareejiso maya runtii dawladda Djibouti niyad jabku wuxuu kaga yimid arkayeen adduunka ila socday ma anaga inay naga niyad jabo aniga iyo Ismaaciil Umar Geelle aad baan isugu dhaweyn dawladda Djibouti waxa la wixii talaa waa kala qaadanayeen waana isku xirnay hayeeshee adduunkii hadduu faraha ka qaaday dawladii waaweyn Mareykanka u horeeyay culayska saaran ee Yurub hadda waxay noqotay in la yiraahdo xasaabtu ku socon mayso annaguna markaas horaan u sheegay anuu haye meesha sheegoonay diyaar baan u ah ciddii gacan la siinayo inaan ku wareejiyo xilka hadda waana tii aan doorasho inta geliyey Kenya la tegay Cabdullaahi Yuusuf markay doorteen waanay si sharci ugu wareejiyay mudane Cabdullaahi Yuusuf sida aad sheegtay markii xilka aad ku wareejisayba waxa uu caalamka ugu baaqay waraysigii ugu horreeyay uu bixiyay ama qodbadii uu ka jeediyay halkii lagu doortay in Soomaaliya u baahan tahay 20,000 askari oo caalamka ka yimaado meesha doonaha ka yimaadaan oo wax ka qabta nabadgelyada sidaynu la wada soconay wuxuu soo adeegsaday dawladaha dariska khaasatan Ethiopia markii uu arkay in hogaamiyaashii kooxaha iyo xogagii kala xaq jirka ahaa aanu ku dhex shaqayn karayn taa weyn la wada soconay adigu intii aad xilka haysay marna ma kugu soo dhacday in baaqaas oo kale adduunyada aad u jeediso tiraahdo wixii waan u maara waayay halayla qabto aniga haba yaraatee dawladahaas aan dariska nahay oo colaadu naga dhaxaysay ma ogola inay dalka yimaadaan inay ku soo dhawaadaan midna dawladaha adduunkuna intay yimaadaan laftigoodu waa kuwii sidaan kuu sheegayay Mareykanka diyaaradda inta laga soo riday dadka laga jiiday iyaguna sidaas inay u imaaneen ayaan ogaa
ciidamo in loo keeno anigu ma rabin ciidanka iyaga in lala tababaro dhaqaalana nala siiyaan rabin ciidanka dalkan isaga qaban lahaa laakiin inta ka horeysa ciidanka aan la helin oo aad adiga qudhaadu qirtay in hawl fara badan iyo waqti dheer ay hawshaasi u baahnayd miyaan loo baahnayn waqtiga aad joogtay qudheeda in qayladhaan adduunyadii loo dirto qayladhaan adduunyada saasaan ugu diray annagu aragtidaydu waxay ahayd 6 bilood ma qaadateen ciidamadii inaan soo celino ciidanka haddii dhaqaalo loo heli lahaa ciidankii waa joogay ciidankii kacaankii uu abuuray oo afrika ciidamada ugu waaweyn ahaa ayaa ummad ciddii carrada ka badano ay diyaareen haddii la heli lahaa dhaqaale markiiba waa la soo celin lahaa dawlad kale oo timaada fikradayadu ma ahayn khaasatan dawladaha iskaba dhaaf iyaga warkooda kuwa dariska ah xagga iska dhig kuwa dibadda ah sidii ay u dhacday tii hadda aan sheegayno dadkii lagu jiido maraykanku dawladda ugu weyneed timid bay ahayd waxayna u yimaadeen markii bal carrada inay dejiyaan dhibaataa ka gaartay sidaas daraaddeed ma aanan doonayn dawladu inta noo yimaadaan oo dhibaata gaarto haddana inay soo noqoto taariikhdii hore ee lagu jiiday diyaaraddii la soo riday raggii maraykanka aysaa mudan cabdiqaasin hogaamiyayaasha soomaalida kelidaa maaha rag fara badan oo kala dambeeyey oo qaarna kaa horreeyeen qaarna kaa dambeeyeen marka xilka laga qaado waddankii waa iskaga tagaa oo dabadaha iskaga noolaadaan halkii dad fara badan ay u arkayeen in haddii waddanka ay u damqanayaan inay dadkii iyo dalkii dhex joogaan oo talo iyo khibrad waxay ku dhaamaan ay ku beeriyaan inkastoo bilowgii waraysiga aad sheegtay in aad golaha u banaynaysay ragga u arkayay in damac kale uu kugu jiro haddana dareenka sidaasi dad fara badan oo Soomaali ah ayuu ku jiraa oo waxa weeye marka xilku iga dhamaado anigu meel aan tagaan haystaa kalidaana ma maxay ku dhacday dareenka ma ku saxsan yihiin kuwa saxsana anigu dalka inaan ka soo kaco diyaar uma ahay ku noqoshadan ka hadlay markii horeba inaan soo kaco diyaar uma ahay inaan ku noqdo hadda waxaan diidayaa aan ku yiri inaan sharaxay loo qaato laakiin inaan soo kacaba ma rabin inaan carradayda joogo oo ummadayda la taliyo oo saan ku sheegay hataa dib u heshiisiinta hadii laga shaqeynayo la shaqeeyay aniga gurigay niman Etoobiyaan oo Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistaan leeyahay waa tagay soo diray ayaa u soo dhacay military Etoobiya carrada joogo gurigii askarteedii bay baabuurtii lagu waardiyeynay baabuur lagu waardiyeynay qaateen hubkii oo dhan bay qaateen xabad un bay nagu dhufan waa joogtayna markaa xagaan ka joogin waa joogaa ku leeyahay gurigii baa soo jabsaday ciidankii baabuur lagu waardiyeynay oo dhan baa la qaatay qaabtii qoriyay oo dhan baa la qaatay meel cidla ah soo ahay macnaheedu waxay ahayd hal dilo hal yiraahdo waxa dilay weeyis Cabdullaahi Yuusuf iyo kii prime minister ka Ameerika iyo tacsiir laga daayay isoo celiyaan ku yiri hubkii laga qaaday waa ku soo celinayna iyo soo de waxay noqotay khasab marka inaan laakiin dareenka sidaas in dad fara badan ay qabaan waad la socotaa Soomaa oo ay in hogaamiyaashii Soomaalida marka xilku ka dhamaado fursad ay u haystaan iyagu inay dabada iskaga noolaadaan oo deedna ay faraha ka qaadaan wixii gudaha ka jiray waa dhici kartaa dadku inuu qabo laakiin mushkiladda tan hadda taagan sidii ay u dhacday way adkay in qofku uu anigu saaba dhacdaan ku yiri aniga waa layla dagaalamo gurigayga la igu soo galay oo la igu diri lahaa oo khasab ay noqotay inaan diyaarad ka soo raaco laakiin qolooyinka kale laftigooda waxaa imaanaya meesha ninka meeshaas jooga maadaama hadda wixii ku meel gaar yihiin inuu isu arko ninka kan uu yahay ninka fidnada ku haya حتى هذه قبيلة كل شيء حتى يسكت ذي إنه أركو إنه أصوب في النقطة هي ربع إنه مش كقاعد. مدن عبد القاسم وقتيكم يلقى كوالله قبحي دولة إلا حد أقانس كايسة تباشي عالم أيها تمد دولة الله معاملة أيه وباشي عالم كله معاملة ينبات تمد إن كستاد ظروفه فربضانه إيجا كله ذو كذا من يجران markaad eegto kuwii ku meel gaarka dawladihii ku meel gaarka iyo tan la aqoonsiyay maxaa ugu weyn isbedelay baad oran leh ruuxantii aqoonsigaas wax weyn oo bedelay ma arag xaqiiqada marka waa ciidan ummadii Soomaaliyeed loo habeeyay oo maanta dalkii oo dhan gacanta ku qaban kara ma jiro
dhaqaale iska daa la siiye oo macno leh waa tan la leeyahay dhow intaasoo bilood baarlamaankii wax ma qaato militarigii wax ma qaato dowladda shaqaalaheedii wax ma qaato macnaheedu marka waxaa weeye kumeel gaar baa laga baxay ama ayaan laga bixin weli in cagta laba ku hayo oo aan sidii la rabay ummadda soomaaliyeed gacan loo siinay sidii la rabay aan hataa loo daynayno in faraha laga qaado aan la rabin weli gacanta lagula jiro dhibaatana ay jirto oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba waa taa haddana ay soo baxeen dadka kale maalin walba dadkii qarxinaya oo iyaduna fidnadeeda ay leedahay sidaan ka warhayo markii aad xilka haysay waxaad aad iyo aad u aaminsanayd nidaamkii dowladda xukunkeedu meesha dhexe uu ku urursanaa oo nidaamka federaalka adigu lamaad haynin maantana nidaam federaala oo dowlad goboleedya oo qaar fara badan samaysmeen iminkana qaar kale soo socdaan baa jira sidee taa u aragtaa anigu dowlad dhexe ayaan rabay ha yeeshee weligayna waa ku hadlahaya waana lahaa dowlad dhexe micnaheedu inuusan noqon wax walba in xamar laga xukumo dowlad dhexe micnaheedu inuu noqdo dowladaha kan yurubta ah oo caasimadana leh magaalo walba iyo dadkeeda iyo tuulo walba iyo dadkeeduna ismaamulaan waa federaalkii nooc kala kaas soo federaalkii nooc kala federaalka Mareykan iyo Canada iyo federaalkii nooc kala oo Yurub markaad مثلا soo qaado waa federaalkii nooc kala diulo horena waa uu tuulo walba in dadkeedu ismaamulo oo ay doorasho yeeshaan degmada inay doorasho yeelato aan laga maarmoon muxuu ahay berbera inaan hargeysa laga maamulo saas ayaan qabay waana sax laakiin dad fara badani waxay u arkayeen mudane cabdiqaasim in tii hore ee ahayd dowladda dhexe ee xoogga leh inaad adigu taa wadatay ma wadan dowladda xoogga leh waxaan ku watay bal horta in laga baxo burburka in laga baxo burburka markii laga baxo horaan ugu hadlay hadaladeedii bay ka mid ahayd eegto in tuulo walba ismaamusho horaan u tuulada iyo degmada iyo kulla ismaamusho ama federaal u bixiyaan federaal uma bixiyeen magacii la rabo loo bixiyo federaal loo maxaad u bixin lahayd kuwa Yurub federaal lama yiraahdo maanta Yurub France ama Italia ama Greece Milano iyo Torino federaal lama yiraahdo haddana iyaga is xukumo ee Rome lagama xukumo magac kale ayay noqon lahayd federaalkiisa haddii laga dhigay oo magacaas loo bixiyay haddii ahlan wa sahlan ha ismaamuleen dalku wax guudna jireen oo dadkoo dhan ka dhaxeeya wax ismaamulaan ha jireen iyay noqon inuu qabiil walba inta calan taagto tan imika la yidhi laba gobol iyo wax ka badan dowlad goboleed bay noqonayaan ee qaar fara badanna soo baxeen qaar kalena la filayo sideed u aragtaa hadda waa seen u arko waa la dhameeyey wax ka haray waa Hiiraan haddaanan qaldanay Hiiraan baa ka hartay shabeellada dhexe iyo Hiiraan baa ka hartay oo ay leeyahay waxa laga dhigaa dowlad goboleed waaba dhamaatay waxa la rabaa hadday dhamaatay sidaan sheegaynay xiriir inuu jiro adag oo ka dhaxeeya dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyada laftigooduna ay xiriir leeyihiin kuwa xuduudaha isla leh iyo kuwa kalaba guud ahaanna Soomaalidu dhan xiriir ay wada leedahay arrintaasna in laga shaqeeyaa la rabaa oo si xooga looga shaqeeyo dhibkeedayna leedahay mudane cabdiqaasim su-aasha kalen jeclayna ku weydiiyo waxa weeye oo aan isleeyahay xog badan baad ka haysaa oo aan rabo dad fara badan oo Soomaaliyeed inaad u iftiimisa waxa weeye bariyahan dambe meelo fara badan waxa aad loo hadal hayaa sidii loo soo saari lahaa khayraadka la sheego in Soomaaliya uu ku duugan yahay rajo fara badan baa jirta baa la leeyahay meelo fara badan baa dhaqdhaqaaqiyo ay ka socdaan arrimaha ku saabsan maxaa taa nooga sheegi karaysaa maxaa ka jira horta arrintaa arrintaas waxay soo bilaabatay xorriyada markaan qaadanay 60meeyadii bay soo bilaabatay waad la socotaan raggiina kamid tahay waa la socon karaan in berigaasba shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka shirkadahaas ayaa xataa mudug iyo galgaduud iyo dhulkaas iyo Hiiraan iyo meel walba baari jiray oo batroolka ka baari jiray kadib Soomaaliya batrool lama helin bay yiraahdeen waa socotay dowladda Maxamed Siyaad Barre laftigeeda batrool lama soo saaray
هي شيء بارتان ولا سني وحا لليه هي ورركا مرركا تاكل الله هي إليه دولتها بترولك كتير صوماليا وحكب بديه بترولك خليج كأيه لليه واتي ما أنا هريم أنا هذا إسكاليه هو هريم هذا الكور بساس وقري حاجة مرمرك تاكل حليلي واكل كوريا ممكن واكل كوريا كان صومالي ده هو سيء أحد كان خليج كوريا هدي خليج كان صومالي ده لقى صار بترولك وحد ذكرت على ليه خليج كوكو ساس مرمرك تاكل والله خلاص هي شيء بترول بكب الحوالي ليه طبعا قاس وابلغها له يد هذا المرة فوقي يقول قاس يوحى لكن بترول كواد الحوالي ليه هي شيء دجنانتي بترول كل وحيالها دبعتها النوك يعني قراراسها نوع هي الدولة وين نوفر الجليل يعني هنا كم تهرب مرية وانا نوع مرية بترول كاس كتيرة خيرات كاس كتيرة سيل الله صوب حمالين معلمها كم جيلال كانوا مركز السعودان أنا نوع كم تكالي وعاص وجيلال كلي مادان بترول كاسي برواقة سيل الله صوب حلفت جيل وحي كم تكال مركو بترول كخليج كل ماضو إلا واحد مانع بترول ملك استوت شوجب واحد ماضو وصعوني انتاس السنة مركو صعود وصعوني تاني نصو وحي هذا هاي ريزيرف أهاتو ساس ياللي إن لبدي كون يشني طبعاً كيوين كتيرة طبيعي قد يسيب الجودة وياهي مستقبل كصوماليا سيدوارك مستقبل كصوماليا وحنو أركا سيدي إلهي كذب أولا ثانيا وحنو أركا أمد الصوماليين حتى إلهي وصول نقطه وسيدي عن وحبضنا من إذا عدها وغيرها ما الله حضر لي التليفون كنت كلها الله يغيري إلهي أنت الله وصول نقطه ليس عفيه قرآن كيسان أنت الله أخريه له الشيء إلهي وأنا قد أقاضها يا بلاي إلهي وأنا قد أقاضها يا بلاي إلهي سبحانه وتعالى عندنا ولقي بلاي كمدل هيو هدي وصول نقطة السجن برواقنا كمدل هيو هدي يدو في النط إسجلسو واقع برواقنا واقع ساسا دين الإسلام قبضة هذا dadkaaga ilayso isfidnayso isqabiilayso isxaasido isxumayso diintaadii aad ku tumato ilaahay waa ka qaadaya wax allaale wixii barwaaqaha iyo nabad aadayso haddaad ilaahay u soo noqoto oo dadkaagii aad soo dhawaysato oo qabiilkii iyo balaayada inta la iska daayo walaalo la noqdo oo yaa Soomaaliyeed la yiraahdo ilaahay diintiisa loo soo noqdo waa noo soo celinayaa barwaaqada saasan qaba barwaaqada ku jirtaan waa soo baxaysaa dadkuna waa walaaloobay walaal rumo ayuu noqonaya marka waxaan leeyahay ilaahay si uu barwaaqada gudaha ku jirtana noogu soo saaro midaan dibadda joogtaabana nagu filan xoolaha iyaga maanta adduunka dadka ugu xoolo badan baan beeraha malaayiin hektar oo beerahan leenna rubuc haddii laga beero rubuc fiiri boqolkiiba 25 haddii la beero Soomaaliya waa ka badan tahay dibadda loo iibgeeyo xoolaha intaasoo milyan oo geel iyo ari iyo lo ahaan leenna waxaan ugu filan anaga boqolkiiba 10 waxaan baahayn baan ugu filan iska wada batrool soo baxay macaadinta Soomaaliya ku jirta ciid iyo carrada ka badan batroolka kasiko waxaas oo dhan baa laga faa'iidi karaya hadii ilaahay inta loo soo noqdo nabad la qaato waxaan ummadda Soomaaliya kula taliyay haddana ku celinaya ilaahay aan soo noqon diinta islaamka aan soo noqon rasuulka xadiiskiisa aan soo noqon aan بريوتنا إلهي برينا دكتور عبد القاسم صلاة حسن أديات بعض ما هتصنته وهاجا جنتاسي وحكونا برنامج كان وكلا ساعتين تلفزيون كيونيفرسال ومرتيو نوجوها مدحويني هراء الصومالية دكتور عبد القاسم صلاة حسن وحلال فربضان وكلا دولنا كسوق قبطي دولته كلا دنبيي هروس ومريض الكصوماليا برنامج كنين تاسي أيو كودن يهي برنامج كنا وحا ويدين كيمني مقالة قاهرة حرونتا ودن كمصاريدا النبت قليو